naxgar dhir joogo midna ka kuma joogo inaan keeno qaabkii baan ku keeni karayaa labadu iyaga waxba isku maaha family isku xiran oo 10 qof baan waxaan rabaa inaan soo kala saaro dhowr qof 3 qof amal aan ka soo kaxeey qaxootigana kaararkiis hal kaar ay wadleen oo isku xiran yihiin odaga iyo laba wiil baa raba laakiin kaarkooda dheer oo qaxootiga 10 qof ku jirta yaa ka soo tagaysaa marka inta badan dadku waan ka soo tagay 3 qof isaan ka rabaa midda kale yar waxa la degan ee ilmaabti yihiin oo wax badan la joogay laakiin kaarka qaxootiga ku lama jiro asagana kaar ma haysto qaxootigu wuxuu joogay 4 sano kaarka xunka cunada ku qaatay siiyeen laakiin UN inta ma register gareen 3 qof baan doonayaa inaan ku keeno group 5 ka haya laba hablood oo walaaladaya iyo inaan walaashay kale dhashay walaalka kale aan labadan la socon oo kale oo ka maqan meesha okay marka 3 qof waa laba walaal haya iyo inay dhaleen abtaan wahay iyaguna habreer bay u yihiin ayagan habreer bay soo qaraayn ha marka magacyadooda inanka hooyadii iyo hablaha magacooda waa smash gareynaya ma hima habreer bay soo ma habreer ma yihiin iyaga labada uu wada dacwoon karaa Soomaa ma isku yihiin labadooda way isu eedo kuwaas isku dari kartaa laakiin waa different card bay haystaan ilaa zamaar waa isku dari kartaa dad qaraaba way dadkaas marka la isku darayo macnaheedu waad buuxinaysaa waxa leedahay gabadhaana xukunto dadkan way isla dagaayaan saanayna isla dhasheen marka la isku darayo marka ma inuu inta xaq isku soo dartaa mise ana isku darayo adaa isku dari qof walba kaarkiisa wala iimaanaya ha wixii saad isku daraysaa waxaad leedahay dadkan way isla dagaayaan labadan kaaray kala wataan saanayna qaraabo u yihiin bismillaahir rahmaanir rahiim soo dhawaada waxa la yiraahdaa Jamila Gurxan waxaan ka imid magaalada Ohio Columbus intiina badan waxay ku taqaaniina oo maleynaya xilligii Donald Trump waxaan ka hadli jiray travel bank iyo all those type of things immigration ka muddo adiga 10 sano ku dhow ka shaqeynayay from waraaq yar oo la buuxinayo to immigration court inta u dhaxaysa waa sameeyay for a long time aan ka shaqeynay dadka Minnesota dadka ugu badan markii magaaladeeda laga reebo oo aan caawiyo ama aan wax u sheegay ay ku jirtaa marka waxa soo baxay sida u taqaanaanba group 5 ka oo hoostaga qoladan la dhaho welcome corps ku hoostaga marka waa inay sharaxa leerbid wuxuu yahay barnaamijka sida uu shaqeeyo ka bacdi qof walba su'aalihiisa ka jawaabaya sidan qiyaasayana waxay qof walba in su'aal looga jawaabo u yimid because inta badan markastoo aan dadka isugu yeero su'aalahaas ayaa loo yimid inay jawaabtooda u helaan qof walba su'aal buu qabaa marka barnaamijkan wuxuu soo baxay 2023 ga sanadka bilowgiisii dawladda Mareykanku markii ka soo baxaysay Afghanistan ayay waxay waayeen lacag ay ku soo daadgureeyaan dadkii caawin jiray oo ahaa muxuu turjubaanada dhaqaatiirta oo la shaqeynay dawladda Mareykanka 20 sano halkaas joogtay saa ogtihiin wadamada markii dadka la soo gelinayo waxa shaqeeya hay'adaha dib u dejinaya hay'adaha qaxootiga sida kuwii anaga wadankan keenay oo kale marka hay'adahaas waxay u baahan yihiin lacag funding loo waayay marka waxa loo furay dadka private citizen ka oo dadka kaligooda like anaga oo kale taa barnaamijka sidaas sidiisa hor ku yimid ka bacdi waxa loo isticmaalay Ukraine ayaa loo isticmaalay oo Ukraine ayadana dadka looga soo daadgureynayo oo lagu caawinayo markii wadanka Ruushka uu galay marka qaybtiisa labaad ayaa waxa la furay December sanadkii la soo dhaafay hadda bil xoogaa 2 bil xitaa ma dhama intuu furan yahay sida uu shaqeeyaa waxay tahay 5 qof ayaa isu imaanaysa 5 qof isu guriga deganaan karaan isku magac ahaan karaan muhiimadu waa inay qaangaar yihiin 18 sano ay dhaafeen waa inay ka gudbi karaan background check ayaa marka wuxuu yahay sida hadda markaad buuxsanayso sharci oo kale hadii aad tahay felon ama dambi weyn aad gashay oo kale sharciga laguma ogola laakiin hadii wax yar aad gashay dambi yar ama traffic iyo misdemeanor ay yihiin waxyaabahaas oo kale ma celiyaan sharciyada so background check qof ka gudbi kara 5 qof inay yihiin qaangaara inay account furaan marka groupku waxay yeelanayaan dad xukuma oo leader ama hogaamiyahooda ah qofkaas ayaa wuxuu marayaa trainingka markuu maro account ayaa la furaa accountka marka dadku waxay isla dhexmareen neenaasta waa maxay neenaasta waxa waay markaad accountka furato online kaanaad adiga ka galaysaa markaas waxa sameynaysaa magaca rabtaad u bixin kartaa reer sheekh account lagu soo qaadi rabay amal aad dhihi kartaa ma ahan wax oo inay taa bangiga tagto aad soo hagaajisay ay tahay adaa wax online ka aad ka samaysan karaa lacagtu marka waa imisa waa $2,425 ala qof
marka hadaad laba qof soo qaadayso intaasad ku dhufanaysaa hadaad saddex soo qaadayso and so on so forth intaas ayaad ku dhufanaysaa lacagta marka 60% waa inay account ku jirtaa lacagtu marka kama bixi karto account-kaas oo muxuu ahayto adikaarkaad isticmaasho aad muxuu ahayto meesha shaaha kaga gadato oo Walmart-iga aad yaanyada uga soo qabsato ma ahaan karo sababtoo ah waxa la eegayaa in muxuu ahayto in statementiga waa inuu 30 maalmood furan yahay maadaama 30kaas maalmood furan yahayna 30ka maalmood waa inaysan lacagtu xaggi u sii socon marka inta badan qofka account-ka hogaamiyaha account-kiisa lagu furaa 30ka maalmood ayaad muxuu ahayto tusaysaa inay lacagtu meesha ku jirto 60% waa inay ku jirto maalinka aad application-ka buuxinayso application-ku markuu wuxuu maraa process ah dadka welcome course-ka u shaqeeya inay eegaan ay dhahaan oo waa fiirinay wixii dhan waa la gudbiyay ka bacdi waxa loo gudbinayaa hay'adaha dibadejinta ee ku yaala wadanka uu qofka uu joogo wadamo badan oo marka loo ogolayn ayaa jira on welcome course-ka programkooda eligible u ahayn taasi ahayd waxaan raadinayay wadamada Soomaalida inta badan ka quseyn horta European countries sida Canada oo kale iyo looma ogola wadamada Soomaalida marka ay ka yimaadaan inta badan Africa sida Eritrea oo kale lama ogola Talyaanigaas asaguna waa muxuu ahayto European country waaye waxaan kaloo la ogolaan Libya kuma jirto wadamada la ogol yahay in dadka laga soo qaado waa ogahay Soomaali badan ayaa Libya joogta Malta oo kale lama ogola kuma jirto wadamada dadka laga soo qaadi karo oo group 5 ku u shaqeeyo waxaan kaloo ku jirin Soomaaliya waxaan kaloo ku jirin Sudan waxaan kaloo ku jirin wadankan Turkiga la dhaho Soomaali badan ayaa Turkiga qaxooti ku ah oo joogta asna lama ogola waxaan kaloo la ogolaan in dadka laga soo qaado Yemen intaas waa intay Soomaalidu banta laakiin wadamadu aad bay u fara badan yihiin sida Australia, Austria, Belgium, Bulgaria but those ones and muxuu ahayto ma raba inaa idinku daaliba waa soo xulay wadamada ee Soomaalida inta badan qaxootiyada ku yihiin ay degdegan yihiin marka kuwaas Soomaalida ay ka soo galaysaa lagama soo qaadi karo qof kuma jiraan wadamada eligible ku oo loo ogol yahay in dad laga soo qaado markay dadka maraan background check iyo application ka furaan waxay u gudbinayaan hay'adda dibadejinta hay'adaha dibadejintu sidii anaga aan wadanka ku soo galno qaxootiga ahayn waxaan marnay caafimaad waxaan marnay wixii la dhihi jiray was GFA oo kalaan soo marnay waxaas oo kale soo marayaan hay'adaas marka waxay leedahay go'aanka kama dambaysta oo ah ama waan yeelnay ama waan diidnay marka dadka ugu fudud oo group 5ka lagu soo qaadi karayaa waxay yihiin dadka Soomaalida ay dhahaan flight sugaha oo wax badan qaxootiga joogay oo lacag loo waayay oo kale dadkaas oo kale wixii dhan way mareen hadii group 5ka loo furo dadka ugu degdeg badan oo loogu horkeenayo waaye sababtoo ah wixii horay u soo mareen oo wax cusub lama gelinayo application-kooda update lagu sameeyna wala fiirna lacaga loo waayay shalay lacagtii qola xalisaa timid maadaama lacagta la xarniyay barnaamijkeediina that's it muxuu ahayto waa la soo qaadaya barnaamijku wuxuu qaataa muddo 6 bil ilaa 3 sano ayuu qaataa 6 bil yaa gali karo oday waayeelo kale in dadka marka lagu sameynayo dhalinyarada dadka da'danada kale ah oo u dhaxeeya 16 ilaa 45 dadka u dhaxeeya dadkaasi waxa lagu sameeyaa rag iyo dumar waxay rabaan ha ahaadaan background check aad u tiro badan marka dadkaas waqti buu qaataa laakiin hooyo ilmaheeda wadata oo waxeedii oo dhan isugu hagaagsan oo ilmo yar yar wadata cid saas u sii baaraysa ma jirto ayadoo kale waa la soo dadajinaa oday waayeel oo kale barnaamijkiisa wax badan ma qaato marka hadii group inta badan dhalinyarada lagu keenaa marka dhalinyarada waxay marayaan baaritaan adagay marayaan baaritaankaas markay ka gudbaan ka bacdi ayaa la keenaa markii loo gudbiyay hay'adda waxa la waa loo yeerayaa dadka waana inay leeyihiin dadku kaar qaxooti oo shaqeynayay September 3 2023 ka hor so September 29 2023 haduu kaar ku jiray uu shaqeynaa laakiin September 30 haduu jiray ma shaqeynayo so anytime of September 30 ka horeysa bisha 9 muxuu ito 2023 uu shaqeynayaa intaas markii la isugu soo aadiyay halkaan ayaa lagu keenaa marka maxaad mas'uul ka tahay waxaad mas'uul ka tahay in dadka aad bedeshay hay'adaha dibadejinta ina xasuusataan kulligeen wadankan waan soo wada galnay marka timaado meesha waxa lagu geenayaa socialka laga buuxsado meesha ID-ga laga buuxsado meesha cayrta laga buuxsado all of those ina dadka geysa ayaad muhiim u tahay wuxuu kaga duwan yahay marka fiisaha waxaad saxiixaysaa waxa la dhaafay